معاني فرحتي نروراي نبضي معاني فرحتي نروراي kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka amniga oo aalaaba aad ka daawataan telefishinka Somali Cable Studio magaalada Muqdisho toddobaadkan qaybtiisii shanaad waxaynu ku qaadanaynaa muhiimadda amniga iyo dhalinyarada oo aynu ognahay dhalinyaradu inay qayb ka yihiin horumarka dalka Soomaaliya dhalinyaradeedu waxay leeyihiin taariikh soo jireena oo ay ku xasuusan karaan 13 dhalinyaro ee SYL ee gobonimo dirirkii kaalinta fiican ka ciyaaray horumarka iyo mustaqbalkii ifay ee Soomaaliya waxaana dhalinyaradu sidoo kale ee door shariif ka qaateen xilligaasi oo dagaalanka in xornimo la helo waana taas mid dhalinyaradu ay ku noqotay in Soomaaliya marka taariikhan laga hadlayo ay door wanaagsan ku yeeshaan dhalinyarada Soomaaliyeed haddaba magaalada Muqdisho waa caasimadda dalka Soomaaliya qof walba oo mubaadin oo Soomaaliyana waxa uu jecel yahay inuu ku soo hirto xilligan waa sidee xaaladda amaan ee magaalada Muqdisho waxaan joognaa magaalada Muqdisho gaar ahaan beerta nabadda caaw aad baan faraxsanahay runtii zaid baan faraxsanahay waxaan dareeminaa inaan jawi nabadeed iyo jawi qurux aan ku jiro aniga iyo asxaabteyda badan isla socono caaw waxaan halkaan u nimi aan galabta u nimi ilaa hadda u joognana waa damaashaad iyo inaan jawiga quruxda badan ee Muqdisho aan ku baashaalno kuna raaxaysano marka dhinaca nabadda magaalada Muqdisho aad buu soo hagaagaya xilliyada hore markii loo eego hadda ma sha Allah aad bay jawigeedu soo hagaagaya waxaan rajaynaynaa inta in ka badan inaan insha Allah jawigaas iyo jawi kasi fiican oo ku fiican dhinaca nabadda iyo dhinaca waxbarashada iyo u qalma oo jawi la tartami karo New York iyo mataqaanay adduunka la tartami kara inay Muqdisho ku soo noqoto ba insha Allah aan rajaynaynaa Muqdisho waxa dhigi kara ma Muqdisho shalay waa Muqdisho cusub oo qurux badan oo ifaysa oo horumar leh oo ku socota meeshii loo baahnaa ayaan aaminsanahay sahanteed inkastoo ay la qabto dunida runtii qaybadeeda kale wax ka dhacaan laakiin ayadana dabcan runtii dunida qayb ka tahay wax way ka dhacaan ifaalaha muuqdana waxa la dhigi karaa waa mid guul iyo nabad ku socdo waxaan yeegsanaynaa runtii mustaqbal qurux badan mana ka niijabi doono runtii mustaqbalka soo socdo ifaayo quruxda badan leh waxaan rajaynayaa inaan runtii gaari doono halka maalmaha dhibka badanna waxa ka dambeyn doona runtii maalmo qurux badan oo wacan magacaygu waa Maxamed Ibrahim Beyle amaan guud ee magaalada Muqdisho 5 sano ugu dambeysay aad buu u soo hagaagayaa sare u socdaa amaanka inta badan uu fiican yahay degmooyinka 17 ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho dadku way socdaalaan sidoo horena aad ugu fiican yahay amaanka marka loo fiiriyo 5 sano oo la soo dhaafay wixii ka horeeyay waxaan ka mid garoowe hadda waxaan joogaa muddo 15 maalmood horumarka magaaladu waan ku soo noqnoqdaa markasta walow aan sanad u dhaxeeyo Muqdisho waxa ka muuqda horumar aad u wanaagsan horumar aad u weyn waxaan arkayaa dhalinyarada intay isxilqaamin iyagoo shaqeynaya magaalada quruxdeeda ka shaqeynaya marka meelaha ganacsiga kale aan tagay waa meel aad u sareeya ku soo kordhay marka waxaan dhigi karaa Muqdisho isbedel bay sameysay 2 sano ugu dambeysay ruuxaantii jawiga magaalada waa jawi aad u macaan jawiga aad u degan yahay hadda waxaan ku suganahay beerta nabadda ah meelaha dalxiiska magaalada Muqdisho loo soo tago ruuxaantii waan ku faraxsanahay caawa inaan nimaano waxaan dareemayaa jawi degan farxad zaa'ida waayo waqtiga asbuuca markuu fasaxayay beerta nabadda imaanaa meelaha kale dalxiiska sida Dar es Salaam oo kale oo loo maleynaa hamar sidaas ahaan oo ka maqanay magaaladan 3 sano oo haddana aan joogo 20 cisho
oo farxad iyo wanaag aan ku imaaday aan ku faraxsanahay maanta waddankayga xamar aan joogo oo loo malaynaa waddamada kale laga cabsanayo muqdisho lama tegi karo khalad ayay u fahansan yihiin waddamada qarbeed soomaaliya aaday u fiican tahay muqdisho wayna fiican tahay maasha allah tabaaraka allah waxaana khayr ahayn kalama kulmin waddankeena waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu noo fiicneeyo ilaahay noo hagaajino waddankaaga wax kuu dhaama ma leh anagoo xaruuraana laga kaxeeyey maantana farxaddan iyo wanaaggan ayaa halkaan la soo kulumnay waxaan dareemayaa nasiino iyo waxaan dareemayaa amni maasha allah waxaan la joogaa dhalinyaro mataqaanaa reer muqdisho waxaan kaloo la joogaa dhalinyaro reer garowe ah waxaan kaloo la joogaa dhalinyaro ka timid koonfur galbeed runtii aad baan u faraxsanahay waan caweynaynaa nabad baan ku caweynaynaa ammaanka magaalada aad u soo kabsanaya sidii hore ma aha sidaan si ka wanaagsan arjeenayna inay sii noqoto insha Allah dhalinyarada marka la yiraahdo nabadda micnaha ay u leedahay waxa waaye wax la soo koobi karo ma ahan waa mowduuc aad u weyn laakiin waxaan isku dayayaa sida ugu gaaban inaan wax ka sheego Soomaalida waxay ku mahmaahdaa nabad baa naasna la nuugali marka nabad meel aysan ka jirinin kuma noolaan karo qofnaba siiba dhalinyaradu waxa la dhihi karaa way u nugul yihiin nabad darrada way wax dareemi kartaa dhalinyaradu waa percentage-ka ugu badan bulshada waa 75 baa lagu qiyaasaa haddii marka meeshaasi bi'adaas ay ku nool yihiin dhalinyarada dhan 75 ay ka dhacdo nabad darro ama aysan nabad ka jirin cidda ugu badan ay saameynayso waxay noqonaysaa waa dhalinyarada marka haddaysan nabad jirin wax lama baran karo haddaysan nabad jirin shaqo ma jirayso haddaysan nabad jirin caafimaad ma jirayo inta haddii la waayo waxyaalo nolosha basic oo ahaa ay laga waayo waxay u malaynayaa de nololba ma jirtiba marka nabaddu waa nolosha ugu horeyn dhalinyaradu waxa ay tahay waa laf dhabarta bulshada ama dheeha ummadda kore ee laga fiirsanayo waxay yihiin iyo waxa ay noqon karaan marka dhalinyaradu maadaama laf dhabartii bulshada iyo dhexaadka ummadda ay yihiin waa kuwa mar walba mudan nabadda iyo nolosha maadaama iyagu dhaqankii iyo dhulkii dhaxalkiisii iyo dheeftiisiiba iyagu ay leeyihiin mar walba waxay mudan yihiin nabad inay helaan nabaddii sidii lagu helan ahaana waxay ku xidhan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dhalintaas hadba deegaanka doonta ka soo jeedo waddanka doonta ha noqoto in ay iyagu ka shaqeeyaan oo bislaystaan ama abuuraan nidaamkii systemka ama qaabkii ay nabadda u dhisi lahaayeen ama ay u mari lahaayeen waddo kasta u mari karaana ay sameeyaan marka dhalinyaradu waa kuwa iyagu u baahan nabadda waa kuwa iyagu u baahan mar walba amniga waa kuwa mar walba iyagu u baahan nolosha si nolol loo helo waa in nabad la helo nabad si loo helana waxay u baahan tahay in maskaxda iyo muruqa iyo maanka laga wada shaqaysiiyo marka loo fiirsho caasimadan marxaladii ay soo martay iyo wixii aan soo marnay maanta waxay haysanaa fursadda ugu fiicneed fursaddii dhanka amni fursaddii dhan dhaqaale fursaddii dhan dhisme habeenkii waxa la gaaray sida la socota marxaladii hore la soo maray waxa kamid ah in habeenkii aan magaalada loo soo bixi karin haddana 8 saac oo habeenimo gaariyaalan ku dhex wadanaa waxaan u tagnaa meelaha dalxiiska Tamashleen waxaan aad ugu faraxsanahay in maamulka iyo maamul wanaagii soo kabanayo amniga soo kabanayo dhaqaalihii soo kabanayo habeenkiina ay amniga uu aad u soo siyaaday wallahi aan wax bas leeyahay xilliga habeenkii ee baroonta maalintii waxyaabaha qaraxada ama dhibaatada maalintii badanaa dhacaamo habeenkii laakiin marmar waxa dhici kara waa qolkiiba 5 camal laakiin amniga habeenkii fiican yahay ani habeenkii soo baxaa insha Allah aad weyn ana horta qof muqdisho joogo mure muqdishaawi ah kana bixin marnaba hal habeen aan ka dhixinaanahay wax aan maanta ku qiyaasi kara ma 2011 maantadan aan joogno absolutely wax la barbar dhigi kara ma ahan runtii ani ahaan markii la yiraahdo waxaan aad iyo aad mar walba ugu faraxsanahay in ammaanka uu mar walba markii si dambeeyo aad u soo horkaca u sameeyo runtii ammaanku waa mid la taaban karo ah 100% runtii xilliyada habeenkii ilaa 5 saac ilaa 8 saac ayaa magaalada Muqdisho qaarkood la gaaraa runtii waana dareemi kartaa in dhalinyaradu ay markaan u bateen in waqtiyada habeenkii ay dukaamaystaan ay wax walbana sameystaan wallahi horta ammaanka Muqdisho 100% wala dhihi karaa maxaa jira xali aniga liida tagay meel walba tagay soo reekaarana tagay Madiina tagay waa soo wareegay ma sha Allah wala wax ila hadlay ama wax juq ii dhaha bajaaja wata ila hadla maan waan dhalinyaro ahay amnigiina 100% la dhihi karaa hadda xamal Muqdisho dhacday weyneed ummadeedii la xasuuqay meedkoodii la gubay mid baa dhiman oo nool mid baa dhismihii ku dumay mid baa hilibkiisii go'go'ay masiibaa dig nagu tiri mangaabkiina xasuuqay maatadeedii baabi'iyey war miyaad ku helaysay balaayin ma magac shisheeyaad ku helaysay
war miyaad Soomaali ka dhalan war miyaad dareen damqasho lahayn war miyaad diin ku celisan lahayn war miyaadna xasuusan qiyaamaha subxaanallah xamartaydii la xasuuqay xinjir lagu qabay dhexdeeda xaabo lagu shiday dadkeeda xasuustii 14 Oktoobar xiskeena kama go'i doonto inta hooyo wiilasheedii dishay inta aaba gabdhahoodii dishay inta caruur hooyadood dishay war miyayna kuugu fillayn hal mid baan ku su'aalay aawi maydkii walaalkay ma kuwaad gubtay buu ku jiray mise kuwaad jarjartuu ahaa aawi maydkii walaalkay dhalinteenii dhammaysay dhallaankeenii qudha goysay maxaa ku haray maanta rabbiyow inaga qabo kuwa ku buhoobay baabi'inta dadkeena rabbiyow inaga qabo 14 Oktoobar magaalada Muqdisho waxay u ahayd maalin madow mashaqadii dhacday qarax dad fara badan oo aanu jecelnahay naga galaaftay ayaa ka dhacay isgoyska Soobe ee hadda loogu magac tiray maalinta mashaqadu ay dhacday ee 14 Oktoobar qaraxaasi waxaa lagu waayay nolosha muwaadiniin fara badan hanti ayaa ku burburtay kuwa kale way ku xubna beeleen oo ay ku jiisoobeen halka kuwa kalena weli dhaawacyadoodii la haardhayayo markii qaraxaasi uu dhacay door intee la eg ayay dhalinyaradu ka qaateen gurmad ahaan qaraxii dhacay kadib dhalinyaradii Soobe anigu aan kamid ahay dhalinyarada gurmad qaran waxaan uga jawaabnay weerar bay soo qaadeen inaguna weerar celis baan haynay runtii dhibaatadaas iyo musiibadii ay maalintii geysteen ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed waxaan u aragnay fal argagax fal ummadda Soomaaliyeed ay ka nacdo waxaan uga jawaabnay sidii mudnayd oo ahayd inaana seexan karin inaana nasan karin inaan ka jawaabnay har iyo habeen u taagnaynay inay dadkaasi badbaadaan wixii hadda ugu dambeeyay waxay ahayd qaraxii Soobe dhammaan Soomaaliya idil iyo adduunka dhan baa ka xumaaday runtii wuxuuna ahaa fal mataqaanaa aan ku habooneen bulshada Soomaaliyeed iyo wixii mataqaanaa islaam ahba marka dhalinyaradu waxay muujiyeen inay ka qayb qaataan maxaa la oran jiray baroordiiqdii iyo gurmadkii inay ka qayb qaataan anu markaa waxaan joogay gobolka Mudug waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii mataqaanaa ka qayb qaatay gurmadka maxaa la oran jiray Soobe waxaan ka qaadanay kaalin wanaagsan dhaqaale fiican baan u aruurinay ma sha Allah horta masiibada dhacayso waxa ay runtii way qoran tahay way dhacaysaa oo saameynteeda iyo dibkeeda iska wadataa inta badan dhalinyarada runtii waxa ma falceli karaan inta badan waa dad la isticmaalo haddii midka wax fuliye iyo kan lagu fuliye ay yihiinba marka laakiin waxay gaari doonaan xilli ay isku tashaan wax fahmaan ay dhahaan adigaan isticmaalaya mana doonin inaan isticmaashada faraha naga qaad waxaa la dhihi karaa dhalinyarada waxay uga falceliyeen si cajiiba maadaama ay dhabar adeeg muujiyeen aysan isdhiibin tahriibin bixin dhinaca fiican ee positive-ka ah nolosha ay ka abaareen sanad kasto magaalada Muqdisho waxa jaamacada ka qalin jeebiyo ku dhawaad 20,000 oo arday oo jaamacada ka soo baxo shaqo yaraan iyo shaqo la'ii way jirtaa laakiin ma niyad jabaan aad u dhabar adeegin dhalinyarada Muqdisho dhalinyarada weerarkii Soobe runtii waxay ahayd jawaabtii ugu caddeed oo ugu muhiimsanayd ay ka bixiyeen qasaare weyn oo meeshaas ka dhacay laakiin qasaarahaas waxaa qariyay awoodda iyo isku dagii dhalinyarada Soomaaliyeed oo qaarkood ay u horeen dhiigagoodii qaarkood ay u horeen waqtigoodii waxay abaabuleen dhalinyarada Soomaaliyeed xarun la dhaho xaruntii ay isugu imaadeen dhalinyarada Soomaaliyeed xoogooda iyo awoodooda ay ku tabaruceen sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed qashinka meeshaas yaallay iyo wixii burburo dhan ayaga nadiifiyeen door muuqda oo muhiim ah ay ka qaateen qaraxaas runtii qasaare aad u weyn u ahaa laakiin waxaa naga qariyay isku daga dhalinyarada Soomaaliyeed oo door muuqda ka qaatay run ahaantii xoogga ugu weyn ee ciddii ka qayb qaadatay gargaarkii qaraxii Soobe waxay ahayd dhalinyarada anagoo ka deegaan ahaan oo ka soo jeeda Puntland oo gobolka Sanaag kaalin weyn ayay ka qaateen dhalinyaradoodu isay ugu gurman lahaayeen walaalahoodii ku waxyeeloobay qaraxii lagu hoobtay ee 14 ka dhacay bisha magaalada Muqdisho xoogga dhalinyarada haddii la mideeyo waxaan aaminsanahay wax walba inay qabsan karaan meel walbana ay gaari karaan wax walba ay ka maarmi karaan oo gacan shisheeye intay tugsan lahaayeen
ayagu isku tashan karaan ay wax walbana gaari karaan wallaahi waxaa la dhihi karaa waxay uga jawaabeen si cajiiba yacni waxaa aragnay awoodda ay leeyihiin haddii ay dhallinyarada ay shaqeeyaan awoodda ilaa intay gaarsiisan tahay wax badan ay qabteen yacni waxa hawshaas qabanaya ma ahayn dad waaweyn ah waxay ahaayeen dhallinyaro ay ahaayeen door muhiim ayna ka ciyaareen يعني وانا waxa ku faraxsanahay intaas in ka muhiimsanay inaan sameeyno waa rajeenayna xaqiiqada markii laga hadlo taas uma baahnaba in qof la weydiiyo qof walba inisa u macalin ah qof jiifta iyo qof weydiin ma lahan xitaa hadii aan awoodin dad baa dhigooda shooy waa la dareemi karaa wallahi weerarka soo buux uga jawaabeen waxay ka falceliyeen micnaha shucuuradooda wixii dhibaato ay ku jirta waxay diyaar u noqdeen inay wax kasta ay ka qayb galaan ma aragtay ay hogaamiyaan doorka oo ku aadan ma aragtay difaaca dalkooda marka kulleeyto inta badan dadkii soo baxay oo maaragtay aad u soo kacay oo maaragtay muujiyay dareenkooda waxay ahayn dhalinyarada arintaas waa arin aad iyo aad u farxad badan sidii looga jawaabay waana dareemi kartaa in magaalada muqdisho intaas oo kun oo qof ku nool ay kaga jawaabeen si daqiiqada ah falkii ka dhacay kii Zoobe runtii waana farxad weyn u ah in adduunyada dhan ay aragtay in Soomaalidu ay tahay mid wax qabsanaysa oo jecel mar walba inay noqoto mid dalkeeda iyo dadkeeda iyo dhalinyarada ay horumariyaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaraxii ka dhacay Zoobe waxay ugu jawaabeen falcelin aad u muhiim ah oo aan isdhihi karin dhalinyarada inta kacdo u kici doonto dadkii meesha qarax iyo musiibooyinka ku gaareen musiibadaas oo ah musiibo aad looga naxay weerarkii Zoobe ee ka dhacay 14 October waa ogeed dhalinyarada dal iyo dibadda isla hal mar isla dhaqaaqday haddaysan dhalinyarada aysan dhaqaaqi lahayn maanta heerkan had inta yar oo aan yar hilmaansan xitaa maanan gaareen waxay ahaayeen dhalinyaro ka jawaabtay 14 October problemkii dhacay iyo musiibadii dhacday dhalinyaradu waa aragtay inay gurmadeen in qof walbeeta aysan ahayn hebela wax igana oo waxa ahayn dadkii meesha ku dhamaaday qayb ka mid ah jirkeenaga ahaayeen dhalinyaradu jawaab fiican ay ka bixiyeen haddii ayaga ahaan lahayn maysan noqon dhalinyarada Soomaaliyeed walow inta badan la oran karo dhalinyaro ku dhalatay dawladnimo iyo nidaam dawladeed aysan ahayn oo inta badan ay u badan tahay inta maanta joogto wixii ka dambeeyay sagaashamaadkii dalkuna sagaashamaadkii markuu soo gaaray oo burburay ama dawladda dhexe xilligaas jirtay ay burburtay dhalinyarada Soomaaliyeed habqan baraka iyo baayaal iyo bayhoof ay ku soo barbaareen iyo sida ay uga jawaabeen waa ismalaha kaafi kala dheeri bay ahayd marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay uga jawaabeen ama ay uga falceliyeen habkii ku haboona ama qaabkii ugu quruxda badnaa ee dhalinyaro ay ka qaadan jirtay ama kaalintii ay dhalinyaro wadankooda iyo dadkooda hadba musiibada ku timaada ay u maaran jireen ama ay jawaab celin aan falcelin ka sameyn jireen habkii ugu haboona bay dhalinyarada Soomaaliyeed bilihii ugu dambeeyay wixii dhacay uga qayb qaateen ama ay ka falceliyeen ama jawaabtoodu ay noqotay waana mid mar walba looga baahan yahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadii sida ay uga falceliyeen maalmaha quruxda badnayd maalmihii musiibada ay uga falceliyeen hadii mar walba uga falcelinayaan ma badhacdeen baan ugu aamsanahay wallahi dhalinyarada Soomaaliyeed musiibadii 14 October waxay uga qayb qaateen si hakarasho la'aan ah waxay bixiyeen dhiig waxay guriyeen oo ay xaaqayeen meeshii ay wax ka dhaceen waxay bixinayeen maalkooda intii tabartooda ay awoodaan waxaan dhihi karaa 100% waxay muujiyeen dadaal bulshadoodii ay u gurmadeen oo ay wixii tabartooda oo dhammaystiran inay bixiyeen baan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed dadkeenu ma dhoohan yahay miyaan dhaayaheenu arag dhagarta laynagu wadiyo cadowga dhexdeenan degay siday u dhammaynayaan dhallaankiiyo hooyadood dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeenna u daadiyan siday u dhammaynayaan dhallaankiiyo hooyadood dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeenna u daadiyan waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqlow kacay maqula dhiidhiyo kacay wixii dhiglahow kacay damiirku intaanu dhiman dhulkeenna difaacane dhalinyarooy kacay waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqlow kacay maqula dhiidhiyo kacay wixii dhiglahow kacay damiirku intaanu dhiman dhulkeenna difaacane dhalinyarooy kacay Soomaalidu had iyo jeer waxay aad u daneeyaan inay helaan
ammaan lagu naaloon karo nabadgelyo xasilooni ka dalata dalka Soomaaliya dhalinyaradu waxaa lagu tilmaamaa boqolkiiba 75 in ka badan in Soomaalidu ay ka yihiin waana xoog muuqda haddaba kaalin intee leeg ayay dhalinyarada Soomaaliyeed ka qaadan karaan amniga dalka Soomaaliya iyo soo celinta xasiloonida والله dhalinyarada qaabo badan ee nabadda uga qayb qaadan karaan waxa kamid ah nabadda inay ka qayb qaataan waxay uga qayb qaadan karaan inay soo baxaan dadka u sheegaan in magaalada nabad tahay muujiyaan socdaan ee guriga ka soo baxaan ee guriga ku jiraan nabadda uga qayb qaadan karaan siyaabo badan dhalinyarada runtii kaalinta kaga aadan ee kaga qayb qaadan karaan nabadda waxa waaye inuu qof kasta isku diro shaqaan loo dirin marka ayaa runtii nabad la heli karaa waa in adiga aad tira nabadda in adiga ka bilaabanayso nafsadaada u sheegtid kadibna waxa aad qaban kartid inaad samaysid wacyigelinta aad samaysid waxaan u baahanahay nabad sababtoo tahay waxaan joognaa magaalo caasimadda magaalada Muqdisho aan joognaa waxay tusaale u tahay runtii meelo badan oo runtii dunida ka mid ah waan runtii aaminsanahay inay mugdi ka soo baxday oo iftiin runtii ay taagan tahay magaalada Muqdisho dhalinyarta iyo shacabka waxay uga qaadan karaan ayagoo dawladooda la shaqeeya wax walba oo nabad keeni kara in laga qayb qaato way dhalinyartu waa in shacabka iyo dawladda isla shaqeeyaan dhalinyartuna la shaqeeyaan dhalinyarada horta dhalinyarada magaalada Muqdisho markii la yiraahdo qaabka ay nabad uga qayb qaadan karaan waxa weeye wax ay soo arkeen baa u tilmaamaysa inay nabadda ka qayb qaataan because of qofku markuu dhib arko buu dhibku qofka walaalkiis ku dhacday buu dareemayaa oo ka fikiraya inuu isaguna isku dayayaa inuu marka mataqaanay uu nabad raadiyo marka dhalinyarada magaalada Muqdisho waxa nabad uga qayb qaadan karaan dawladooda cusub oo soo dhalatay dawladooda la shaqeynaysa dadkooda inay la shaqeeyaan oo mataqaanay ay horumarkeeda iyo mataqaanay qaabka ay haddeer u socoto oo jawi wanaagsan oo dhalinyar la shaqeeyna wallahi waxay uga qayb qaadan karaan koow degmo ahaan in isugu xirnaano qof walba waaxid iyo xaafad uu ka warqabo inta tirkoob hadda waxa jira degmooyinka ee wadaan xaafadaha inta guriga ku nool iyo dadka ka maqan iyo area-da waxa soo galay waxa aaminsanahay hadii programka uu socdana inay xamar oo dhan yacni dadka ku nool lahaan doon tiradooda in la sameeyo in amniga laga shaqeeyo amniga sidii looga shaqeyn lahaa iyo sidii bahalkan la yiraahdo nabad la'aanta looga hortagi lahaana oo nabad loo heli lahaana dabcan waxay u taalaa hay'adaha qusaysiga dawladda oo malaynaya su'aal muhiim ah jawaabteedana u baahan dhalinyarada Soomaaliyeed mar walba waxa la gudboon ama musiibo ha timaado ama barwaaqaha lagu jiro in mar walba iyagu ay isku xiran yihiin iyagu ay gacmaha haystaan mar walbana ay ka fakaraan sidii iyagu ay isku kaashan lahaayeen iskuguna tashan lahaayeen dhalinyarada waa bulshada Soomaaliyeed markii laga hadlo boqolkiiba 75 waxayna ka dhigan tahay in iyagu manjaraha u hayaan ummadii Soomaaliyeed tayadooduna ay iyaga tayadii ummadana ay dhalinyarada tahay sidaas darteed waa in mar walba dhalinyarada Soomaaliyeed ay iskaashi sameeyso isku xiran yihiin iska warqabaan is og yihiin taas laga gudbi karaa wax walba oo caqabad keena waxa laga gudbaa iskaashi isku tashi wax wada qabsi iyo wax wada qaybsi insha Allah saas laga gudbaa dhalinyaradu waa door muhiim ah ka qaataan amniga haddii dawladdu ay u isticmaasho inay ka shaqeeyaan amniga dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muujinayaan hadda isku xirnaan iyo isdhexgal ay ciidankii qaranka ay isdhexgalayaan oo la shaqeynayaan ayagoo doorkaas uga faa'iideysanaya inay amniga wax ka sugaan sida la socota maalmo dhaweed waxa dhacay urur dhalinyaro oo isxalqayn leeyahay oo dhalinyarada iyo shacabka ka shaqeeyay inay isdhexgalaan dhalinyaradaasna muhiimadoodu waxay ahayd si amniga xoojin ay uga qayb qaadan lahaayeen in amniga la xoojiyo muhiimadda dhalinyarada sanadkan hadda la joogo waxa waaye sidii amniguna u soo kaba lahaa gaar ahaan dawladdu u soo kamid lahayd oo aan u noqon lahayn bulsho wada jirta iyo qaran wada jira run ahaantii amniga cidda quraan oo aaminsanahay oo xogta dhaba ka keeni karta oo kaalin muhiima ka qaadan karta waa dhalinyarada ayaa meel kasta joogta dhalinyarada ayaa wax walba u warhaysa iyada ayaa haddii ay la shaqayso laamaha amniga waxaan aaminsanahay in nabadgelyo buuxda ay dalku helayo ay dadkuna nabad iyo nolol ay heli doonaan insha Allah taala runtii kaalin muhiim ah ay ka qaadan karaan wadanka dadka wadanka dhisi karo amnigiisa gacanta ku haayo waa dhalinyaro dadka difaacayo ciidanka wax kasta waa dhalinyaro waxa isleeyahay boqolkiiba 90 gacanta amniga wixii ku jirta dhalinyarada doorka waxa loo qayb qaadan karaa in la helo orta sida maanta loo helay loo lageelay ururkii dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waxaan kala jaanka ee kala socodka waxba lagu ma sameyn karo laakiin midnimada dhalinyarada loo sameeyay ururkan ay ku midaysan dhalinyarada dhammaan Soomaaliya soo hal ahayd in Soomaaliya hal ay noqoto ururkan ay ku midoobaan ayaa ah mid amniga iyo horumarka dhalinyarada iyo wax walba wax ka qaban doono marka taas asaas wax kale la isku daaliyay iyo jawaab kale uma baahna runtii waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool mar walbana waxaan u taaganahay sidii wadankan ammaanka uga badnaa aan ugu soo celin lahaynay
mar walbana dhalinyaro waxaa waaye sidii hadda la sheegay mar walba boqolkiiba 75 waddanka wax jooga waa dhalinyaro runtii waxaan mar walba ku sugannahay waa caasimadii dalka waa magaalo madaxdii Soomaaliya ee Muqdisho runtii ammaanka aad iyo aad ayaa loogu baahan yahay mar walbana waxaa lagama maarmaan ah in dhalinyaradu ay iskaashtaan dhalinyarada iyo amnigana waa lama kala huraan oo mar walba inay isla socdaan ayaa loo baahan yahay bismillah ayaan ilham cilmi dhalinyarada Soomaaliyeed dalkaanay horumarkiisa iyo nabadiisa ay ku leeyihiin door muuqda oo la taaban kara kaasoo ah inay yihiin boqolkiiba 75 maxaa yeelay boqolkiiba 75 annagu waxaan aaminsanahay inay yihiin dadkii aan marka loo fiiriyo nabaddarradan loo adeegsaday marka loo fiiriyo nabadana ka shaqeynayay sababtoo ah marka iyagii la helo ayagiyo midaysan marka la helo inay dalkan wax ka bedeli karaan waan aaminsanahay doorka ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa door aad u muhiim ah oo xiliyo badan aan soo sugeynay waayo sababtoo ah waagii hore waxaan soo hogaamin jiray odayaal xildoonayaal ah laakiin hadda waxa arkay doorka ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay hamigooda inay ku dhashaan inay soo istaagaan saaxooyinka inay maanta arkaan inay wax u qaban karaan Soomaaliya doorar weyn iyo in badan waa ka sugeynaa inay qabtaan insha Allah waa aragnay haddaba amniga haddaysan dhalinyarada aysan qayb ka ahayn heerkaa muuse soo gaarteen markii laga hadlaayo amniga oo kaleeto dhalinyaradu haddaysan ayagu aysan marnaba ka shaqeynin xaaladda markas jirta ee amniga ah dalkani ma hagaaga marka waxaan leeyahay dhalinyarada haddaysan ka qayb qaataan amniga hawsha socota kaalin mar walba ka qaataan doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karto horumarka dalkan waxa weeye waa mid muuqdo oo cad dalkan waxa burburiyay mar haddii dawladda dhexe meesha ka baxday cidii qalaasaha waday 30 sano waxay dhalinyaro waxay ahayd awood muuqata oo jirta oo aan laga faa'iideysan marka iyaga ay noqdeen inay u faa'iideystaan dhankii qaldanayd waddankan waxa harkaa gaarsiiyay burburka geeyay haddii qabiil loo diriraayay kuwa iyagu diriraayay ahaayeen haddii burcad la noqonayo kuwa noqonayay haddii la tahriibayo kuwa tahriibayay ahaayeen taas macnaheedu waxa weeye haddii awooddaas muuqatay la jihayn lahaa oo heli lahayn jihe waxay ahaan lahaan dalka adduunka ugu horeeya waa dalka adduunka ugu horeeya marka awood muuqata oo aan cidna qaran karin ayay leedahay laakiin waxay kaliya waa jihayntii nabad iyo nolol ma dhici karto in nolol horumarsan aan kulligeen wada raadino haddii aanan nabadda qayb ka wada qaadanin dhammaanteen waa naga wada go'an tahay waana ku wada shaqaynaynaa haddii allah awoodda la oggolaado dowlad ra'iis maadaama aan si buuxda ugu wada istaagnay haddaan nahay hogaamiyaasha dhalinyarada anigu waxaan dhahaa mararka qaarkood hooyadii dhalinyarada waxaan rabnaa inaan kulligeen ka wada qaadanno sidii loo xasilin lahaa dalka loona heli lahaa amni lagu soo celiyo nidaamkii iyo kala dambeynta سلام 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 يا صومال سلام 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 يا صومال ندعو من الله أمنا وسلاما سلام 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 يا صومال في ربوع الأرض إخوة ووئاما سلام 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 يا صومال ندعو من الله أمنا وسلاما سلام 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 يا صومال في ربوع الأرض إخوة ووئاما هنا نحن يا صومال كم جبنا شتاتا وشتاتا guud ahaan toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii amniga qaybtiisii shanaad oo aynu ku qaadanaynay dhalinyarada iyo ammaanka waxaana barnaamijka u mahad celinayaa guud ahaanba dhalinyarada igala qayb qaadatay ee barnaamijka igala qayb galay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa bahda stuudiyaha telefishinka Somali Cable stuudiyaha magaalada Muqdisho oo isku soo duway qaabeeyeen barnaamijkan
waa tabiyaha barnaamijka cabdicays cabdullaahi riyali oo inta barnaamij midkaan lamid idinkaga tegayo sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu نبدي معاني فرحتي نروراي نبدي معاني